ololihii diblomaasiyadeed damcii bulsho iyo dadaalkii hogaamineed ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ku aadanaa ku biirista dalada bulshada Bariga Afrika ayaa miro dhalay kadib markii dalalka ku midaysan daladan ay si rasmi ah u meelmariyeen xubinnimada ururka ee Soomaaliya. dadkeena haddii ay Kenya joogaan oo Tanzania joogaan oo maxaan ku raadiyay Uganda joogaan oo South Sudan joogaan oo DRC ay jiraan joogaan oo kulli hanti ay ku haystaan aanan sharciyeysnayn oon la aqoonsanayn maanta wixii ka dambeeyo hantidooda iyo ayagoo sharciyada ay meeshii joogaan ku joogayaan. ururka bulshada Bariga Afrika waxa uu ka kooban yahay 7 wadan kuwaas oo kala ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Burundi, Kenya, Rwanda, South Sudan, Uganda iyo Tanzania, waxaana 8 ku noqonaysa Soomaaliya oo sanadkan ku biirtay. dalalka Kenya, Tanzania iyo Uganda ayaa ururkan dhidibada u taagay sanadkii 1967 hase yeeshee dhibaatooyin siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale oo soo wajahay ayuu u burburay 10 sano kadib ka hor inta aan dib loo howlgelin bartamihii sanadkii 2000. wadamada Rwanda iyo Burundi ayaa ku biiray ururkan bishii Juulaay sanadkii 2007. dalka Jamhuuriyadda Koonfurta Suudaan ayaa isna xubin ka noqday bishii Abriil 2016 halka wadanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo uu isna ku biiray dabayaaqadii March ee sanadkii hore. damaca Soomaaliya ee ku biirista ururkan waxa uu soo bilowday 10 sano ka hor waana sanadkii 2012 markaasna waxaa dalka madaxweyne ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo aysan markaasi suurtagal noqon maadaama aysan Soomaaliya buuxin shuruudihii loo baahnaa. dib u doorashadii madaxweyne Xasan waxa ay soo noolaysay rajadii ahayd in ay Soomaaliya ku biirto ururkaas. wuxuu madaxweynuhu socdaal ku tagay xarunta ururka oo ah magaalada Arusha ee dalka Tanzania si uu kaga qayb galo shir madaxeedkii 22aad ee ururka si codsi kama dambaysa ugu gudbiyo madaxda dalalkan iskaashaday. doonista dhabta ah iyo dadaalada dawladeed ee aan kala harka lahayn waxay ugu dambeyn hirgeliyeen himiladii shacab ee ahayd in Soomaaliya noqoto dalka 8aad ee ururkan. haddaba waa maxay waxa ay kala faa'iidayaan dalalkan ku midaysan daladan? dabcan waa qodobo badan waxaase ugu waaweyn 3 qodob ee kala ah iskaashiga horumarinta dhaqaalaha, xurriyadda isku socodka dadka iyo iskaashiga arrimaha siyaasadda. ku biiritaanka Soomaaliya ee bulshada Bariga Afrika wuxuu faa'iido weyn u yahay shacabka Soomaaliyeed iyo shucuubta kale ee ku nool Bariga Afrika. Soomaaliya waa wadan dhaca goob istiraatiiji ah, waa dal leh xeebta ugu dheer qaaradda Afrika, ahna mid ka mid ah xeebaha ugu kheyraadka badan caalamka, maraana marinbiyoodyo caalami ah oo adduunka oo dhan indhaha ku hayo. ka mid noqoshada dalalka bulshada Bariga Afrika ee dalkeena ayaa shacabka Soomaaliyeed uga dhignaan doonta fursad ganacsi iyo suuq weyn oo ay ka faa'iideystaan badeecada ay u iibgeeyaan dalalkaasi oo aan canshuur kale laga rabin, waxaana u fududaan doonta socdaalka dalalka ku midaysan East African Community iyadoo aan looga baahnaan doonin dalku gal, waxayna heli doonaan baasaboorka bulshada Bariga Afrika. siyaasad ahaan ka mid noqoshada ururkan waxa ay miisaan u yeelaysaa saameynta Soomaaliya ku leedahay gobolka, waxayna kor u qaadi doontaa codkeena siyaasadda Afrika iyo tan caalamka. Soomaaliya waxa ay saameyn xooggan ku yeelan doontaa go'aanada masiiriga ah ee arrimaha geeska.